Asalaamu Allaahi calaykum. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Waxaan rajeynayaa inaad santiin dhammaantiin. Waxaan rabaa halkan inaan ku duubo lacagaha aan isbuucan rabo inaan ka trade gareeyo runaantii oo fursad ay ku jirto. Haddaan bilaabo lacagtan DXY-da waxaa jiray isbuucii dhaweyd video aan soo dhigay oo aan kaga hadlay lacagihii isbuucii dhaweyd iyo weliba information ku saabsan isbuucaas. Waxaa jiray lacag ay furnaa laakiin aan iska xiray wax la dhaho maalintii habeenkii Jimcaha. Dabcan haddaan eego lacagtan DXY-da waxay leegtahay lacag pay loo celin ay leegtahay sababtoo ah qaab dhismeedkeeda iyo weliba qaabkay ku jirto hadda haddaan eegno. Waxay joogtaa wax la dhaho meel double bottom hoose ah laga celin karo runaantii qaab structurally ay ku timi. Haddaad eegto wax la dhaho in macquul in ay soo dhacdo meeshan timaado possible waxaa sidoo kale in meeshan ay structure ka sameyso kadibna dabcan ay halka uga baxdo. Waxaan ka faa'iideysanaa lacagta DX ay maamusho. Lacagahan sell waadix ah ayaad uga jeedaa. Lacagahan oo dhan sell waadix ayaad uga jeedaa. Lacagtan oo kale waxaan sugaynaa wax la dhaho one time for that in meeshaas correction ay ku tagto kadibna qaab qurux badan meesha sare usoo qaadano iyada iyo lacagahan ay maamusho DX. Sababtoo ah sidoo kale lacagtan waxay kuu sheegaysaa wax la dhaho lacag sell inay tahay. In lacag sell ay tahay way laaban kartaa bartaas iyadoo bartan jabin bay laaban kartaa automatically ay aadi kartaa because possible waxa ah in meeshan dabcan amortage lasoo sameeyo. Fahamsan? Marka iyadana ishaan ku haynaa. JPY USD iyadana waa tan qaab dhismeedka ay ku jirto wax la dhaho USD ay ku jirtaa. Sidoo kale Euro USD iyadana dabcan waa sidan. Lacagtan USD waa iskaga baxay Jimcadii baan haystay dabcan meeshan aan ka galay. Meeshan waxay soo orday wax ku dhow around 55 pip soo orday. Euro JPY iyadana waan qaatay around waxay soo orday iyadana lacag fiican ay ahayd iyadana iskaga baxay 150 pip oo dhawan lacag qurux badan. Okay, iyadana waxaan ka raadinayaa wax la dhaho inay iyadana soo dhacdo oo meeshan ay timaado. Targetka koowaad xagee noqonaya meelahan noqonaya haddaan meeshan fursad ka helo. Isniin way saaka suuqu dabcan saaid ma furna ma dhaqaaqayo laakiin waa eegaynaa xilliyada dambe dabcan New York sessionka laga yaabaa inuu dhaqaaqo. Lacagtana waa Eurocat iyadana dabcan qaab dhismeed ku jirta iyadana qurux badan macquul in lagu laabto meeshan structure lagu laabto waan eegaynaa meeshaas ama possible meeshan flag laga sameeyo oo qurux badan. Fahamsan? Ama in meeshan la tago iyadana waa eegaynaa. Lacagta kaloo diyaarka waxa waaye lacagtan goldiga ujeeda wax la dhaho goldiga in expanding ay ku jirto haddana structure yariisa meesha ku jirto possible soo jebintaas in laga qaadan karo waayo dabcan waxay ku tusaa wax la dhaho jiho sell ah macquul inay kusii socoto iyada mar waliba waxaan sugaynaa wax la dhaho qaab dhismeedkeeda iyo qaabka u dhaqanto. Lacagahaasaan eegaynaa insha Allah mar waliba insha Allah update soo siinaya insha Allah waa ino iyo Arbacada insha Allah.